sarkaal ka tirsan ciidanka daraawiishta Puntland oo lagu magacaabo Gaashaanle Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Weyrax ayaa loo taxaabay xabsiga magaalada Garowe. sarkaalkan ayaa maalmo ka hor warbaahinta ka sheegay cabashooyin la xiriira mushaar la'aan iyo xaalado dayac caafimaad oo uu sheegay inay wajahayaan saraakiisha iyo ciidamada daraawiishta Puntland ee ku sugan xerada 54 ee magaalada Garowe. waxa uu sidoo kale sarkaalkani sheegay in saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta ay dhowaan u geeriyoodeen xaalado caafimaad darro kadib markii sida uu sheegay laga saaray isbitaalada sababo la xiriira dhaqaale xumo iyo awood la'aan. Gaashaanle Weyrax ayaa intaasi ku daray in qaar ka mid ah ciidamada daraawiishta Puntland aysan wax mushaar ah qaadan muddo dheer, arrintaas oo uu sheegay inay saameyn weyn ku yeelatay xaaladda nololeed iyo markaasi caafimaad ee ciidamada. qoyskiisa ayaa u sheegay warbaahinta in shalay barqadii looga yeeray taliska xerada 54 isla markaana markii uu halkaasi gaaray lagu wargeliyay inuu xiran yahay, waxayna intaasi ku dareen in lagu xiray xabsi ku dhex yaala xerada 54 ee Garowe. saraakiilka agdhow sarkaalkan la xiray oo u warramay warbaahinta DMB ayaa intaasi ku daray in xarigiisa sarkaalkan laga soo amray madaxtooyada Puntland isagoo aysan jirin wax war ah oo rasmi ah oo ay markaasi arrintani la xiriirinayaan laamaha ammaanka. xariga sarkaalkan ayaa imaanaya xilli ay markaasi isi soo tarayaan cabashooyinka la xiriira mushaar la'aan iyo markaasi xaaladaha nololeed ee qaar ka mid ah ciidamada Puntland.